ururka haweenka beesha daarood oo kamid ah beelaha Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay baaq ugu direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixin warkaasi ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Xasan Kaahiye. kulankan Muqdisho ay ku yeesheen ururweynaha haweenka beesha daarood ayay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana ay baaq u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xubnaha kale ee ka soo jeeda beeshaasi oo qaybta ka ah labada gole ee dawladda. waxaan dawladayada ka rabnaa in aan haddaanu nahay gabdhaha beesha daarood ee ku dhaqan magaalo madaxda Muqdisho in aanu ka helno xuquuqda aan ku leenahay dawlad ahaan. waxaan fariin dheer iyo fariin gaaban baa u diranaa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxdeeda waxaanu leenahay waxaanu rabnaa xuquuqdayadii gabdhaha beesha daarood ee Muqdisho ayaanu raadinaynaa sida ay sheegeen waxa weeye way naga xidhan yihiin xafiisyadii albaabadii way naga xidhan yihiin xuquuqdayadii way maqan tahay dhalinyarada jaamacadaha ka baxday guryaha iska fadhiyaan hablaha yaryar jaamacadaha dhameeyay guryaha iska fadhiyaan. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mucaarad ahayn idaan ka soo horjeednaan aysan jirinin idaan maaragtaa anagu diidanaan aysan jirinin laakiin aan doonayno xuquuqdii anagu aan lahayn maadaama ay Soomaaliya tahay 4 iyo bar waxa anagu aan u leenahay xaqayaga aan wax badan ka xishoonay oo aan dulanka nala ku hayay aan mar wax badan indhaha ka dadnay baan waxaan maanta doonaynaa inaanu sheegano waxa naga maqan waxaygii baan rabaa ayna maahan cadaabna maahan laakiin xaqaygii baan rabaa iga maqnaa walaalayaalow haddaan wax badan ka xishooday oon media kala xishooday oon bulshada dhexdeeda kala xishooday maanta waan adkaysan weynay. gabdhihiina inaa isku tiirsanaataan inaa isku mid noqotaan xuquuqda aan leenahayna sidaa u raadiseen iyo si ka sii daran inaa u raadisaaneen. aniga hadalkaygu ma badna ma aan doonayno madaxweynaha iyo ministarku ma kala dhacaan waa isku mid labada barlamaan ma kala dhacaan waa isku mid dad wanaagsan baa saaran dubutaatiyaashu waa wanaagsan yihiin wasiiradu waa wanaagsan yihiin waxaan u sheegaynaa xuquuqda aan leenahay annaga in la siiyo oo la arko. madaxda iyada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa xuquuqda aanu leenahay haddii aan nahay beesha daarood rag iyo dumarba waxa xuquuqa kama helin kamaan helo. gobolka banaadir haddii aan guda galo waa 17 degmo waxaa ka shaqeeyo ilaa iyo gudoomiye degme gudoomiye waaxeed gudoomiyaha arrimaha bulshada ilaa iyo isbisiiliyaasha hal gabar kuma lihin. madaxweynahayga Maxamed Cabdullaahi Maxamed ra'iisul wasaarahayga Xasan Cali Khayre salaamiya gudoomiyaha Maxamed Sheekh Mursal waxaan leeyahay xifdi salaama xaqa aad qaadeen waxaan rajaynayaa idinkana filayaa waa iska dhici karaa inuu qofka markuu badda ku jiro inuu daadka hirba hadba meel u qaado hirbaad ku jirtaa bad baad ku jirtaa badda Allah idin laasturo laakiin haddana xaqa waa equal waa Soomaalinimo intaasaan ku soo gabagabeynayaa. beelweynta gabdhaha Soomaaliyeed idinkama annaan shirina waa idin shiray wixii aanu tabanayno wixii aanu tirsanayno waxaanu jeclahay inaad idinka laftirkiinu baaq ayaga dhegaysataan oo aadna soo dhawaysaan oo aadna aqbashaan. waxaanu rabnaa cadaalad baanu rabnaa wax ka baxsan ma doonayno cadaalad baana deeqda isu samir baana deeqa isdhagaysi baana deeqa is-ixtiraam baana deeqa is-sharaf baana deeqa waanu idin sharafnaa gabdhaha Soomaaliyeed inaadna sharaftaan baan rabnaa. baaqan ayaa ku qotomay sidii mas'uuliyiinta dalka ay ugu qaybgelin lahaayeen geedi socodka siyaasadeed ee dalka haweenka ka soo jeeda beeshaasi. Xasan Kaahiye, Som News TV, Muqdisho.